hamigaagu wuxuu yahay 20 jir inaad taajir ku noqotid ama aad 20 jir caan ku noqotid 20 jir inay cirro kaaga soo baxda mooye ama bidaar caan kuma noqonaysid taajirna kuma noqonaysid dadka dunida taajir wada noqday ama caan ka wada noqday waa dad 40 kor u dhaafay hadaad aragto qof dhalinyaro oo caan ah ama qof dhalinyaro oo taajir ah waa qof waalidiintiisa taajiriin ay yihiin caanimada lagu sheegay ma waxa moodaa in Soomaalida dhaxdeeda Instagram aad ka samaysatay ama YouTube ka samaysatid caanimada lagu sheegay waa in dad luqado kala duwan ay akhbaar kula wadaagi karaan dad luqado kala duwan ay kula soo xiriiri karaan dad luqado kala duwan ay aqoon ku leeyihiin caanimada lagu sheegay haday wax tarayso imise shactiroola ah taqaanaa ama dadka ka qosli jiray ee silic u dhintay imise shactiroola ayaa taqaanaa oo aan maanta waxba haysanin oo niyadaada aysan ku jirin ilaa aad daawatid mooye ama aad aragtid mooye imise fanaan ayaa taqaanaa oo xilliga 2015 wixii ka horeeyay ama 2010 wixii ka horeeyay heesi jiray maanta niyadaada aysan ku jirin caanimada lagu sheegay kaliya waa inta aad muuqanaysid waa inta videogaaga la daawanayo waa inta lagu arkayo Soomaalida badankood aad weydiisid maxaad rajadaadu tahay ama hamigaagu yahay ama mustaqbalka maxaad jeceshahay in la weydiiyo saddex arrin bay kula wadaagaysaa waxay ku dhahayaan ama madaxweyne jeclahay inaan noqdo ama dhakhtar jeclahay inaan noqdo ama caan inaan noqdo jeclahay xilliga dugsiga hoose dhexe aan dhiganayay macallin baa noo soo galay cilmiga bulshada dhiga wuxuu na weydiiyay waxaanu jecelnahay mustaqbalka inaan noqono ardayda kala bar waxa ay tiri waxa aynu jecelnahay madaxweyne inaan noqono kala barka kalena waxay dhaheen waxaynu jecelnahay inaanu noqono dhakhtar dhakhtarnimada lagu sheegayo dhakhtarnimada Soomaaliya taala maanta hadii madaxa laga qabto ama dhabarka laga qabto ama meel laga qabto dhakhtarka marka uu tagtid dawada marka uu ku soo qoro inta uu si jawaabta ku siino waxa uu ku leeyahay farmashigan ayaa dawada laga helayaa farmashigaas ka doono waxa dareemaysaa meeshaas inuu ganacsi ka socdo farmashi oo asiga ganacsi la sameeyo ayuu ku direeyaa waxa laga yaabaa dawada xataa inaad u baahneen dhakhtarnimada saarta inaad noqotid waxa laga yaabaa madaxweyne inaad ku fikiraysid Soomaaliya dhan hadii madaxweyne ku fikirayso marka fikirkaaga muxuu noqon karaa nasiibkaaga sidee ku soo bixi kartaa wadana waa taqaan xaalka Soomaaliya iyo sida wax loo qaybsado waxaan kula wadaagayaa saddexda shay aan ku sheegay ee ah dhakhtarnimada iyo madaxweynimada iyo caanka saddex shay ee ka muhiimsan ee noloshaadu aad horumar ku gaari kartid qofku inta uu dhalinyaro yahay hadii uu ka fikiro shaqo hadii uu ka fikiro meel uu seexanayo oo furihiisa gacanta ku haysto iyo hadii uu ka fikiro qofka uu nolosha la wadaagayo wax kale ee nolosha uga dhiman ma leh waynaad ka fikir kartaa waxa aad ka shaqeynaysid waxa laga yaabaa marka shaqo lagu yiraahdo inaad la soo boodid shaqo wadanka ma leh ama meesha aan joogo shaqo ma leh ama maxaan ka shaqeeyaa marka hore naftaada waxa aad bartaa inaad dhaqaaqi kartid waxa laga yaabaa 2 sano ee ugu dambeysay ama 5 sano ugu dambeysay inaad meesha aad joogto dharka aad xiranaysid sida aad u seexanaysid sida aad u soo toosaysid inaad 5 sano u dambeysay isku mid tahay iyo waxa aad cunaysid hadii aad baratid in mutadawac lagu shaqeeyo waxa ku sahlanaanaysa shaqooyinka inuu ku furfurmaa aniga aad daawanaysid sanadkii ugu horeeyay ee aan shaqo bilaabo waxaan ku shaqeeyay si free ah free marka uu shaqeeyay kadibna waxaan helay waxbarasho lacag la'aan ah oo xataa aniga lacag lagu siinayo waxa aan cunaya leeysiinayo kadib waxa dhacay markii aan waxbarashada soo dhameystay inaan meeshii waxbarashada liiga siiyay aan ka shaqeynay marka waxaad ku dadaashaa shaqadu guriga kuuma imaanayso inaad baratid caawinta qofka weyn oo meel ka shaqeynaya inaad la shaqeysid si mutadawac ah inta aad iska jiifilaa sariirta inta aad mobilkaaga isticmaali lahayd inta aad waqtiga lumi lahayd meel qaas ah ku lumi lahayd waxa aad ku dadaashaa inaad dadka ama ganacsiga sameynaya ama hawlaha kala qabanaya inaad la shaqeysid waayo qof marka aad la shaqeysid qof kale ayaad ku sii baranaysaa asxaab badan baa yeelanaysaa aaminaadaada ayaa kordhaysa marka lagu aaminana qof ayaa kugu aaminaya shaqadiisa qof ayaa kugu aaminaya inaad la joogtid marka aad shaqo heshinay waxa ku sahlanaanaysa inaad guri kireysan kartid ama guri deegi kartid ama guriga aad degan tahay familka aad nolosha inay kugu xushmeeyaan waayo qof wax dakhli soo gelinaya ayaa tahay markii dakhli uu ku soo galanay waxaad helaysaa qof nolosha kula fahma qof sida aad tahay garab kugu siiya saddexdaas markii ay ku hagaagaan wax walba waxay ku noqonaysaa sida aad ratay riyooyinkaaga iyo hamigaaga iyo waxa aad ku haminaysaa ha ahaadaan kuwa ku qarsoon sheeko ayaan buug ka aqriyay buugaasi waxa uu soo shabaxay sheekadii macallinkii cilmiga bulshada noo dhigayay
sida uu noo weydiiyey waxa aan mustaqbalka noqonayno sidaas si lamid ah ayaa macallin ardaydiisa weydiiyey waxa ay jecel yihiin mustaqbalka inay noqdaan waayo ardaydu waa kuwa ugu badan ee maskaxdoodu shaqaynayso fikirro badan ayay maskaxda ku hayaan macallinku wuxuu yidhi waraaqad waxaa kusoo qortaan waxa aad doonaysaa mustaqbalka inaad noqotaan qof walba wuxuu kusoo qoray waraaqada waxa uu doonaya mustaqbalka inuu noqdo macallinka hal arday ayuu fikirkiisa ka helay fikirka wuxuu ahaa ardaygu wuxuu yidhi waxaan jeclaa mustaqbalka inaan iskuul weyn dhiso iskuulkaasi oo sanad walba lagu qabto tartanka fardaha tartankaas fardaha waxaa kasoo qayb galaya dadka taajiriinta ah waayo magaaladaasi uu ardaygaasi degan yahay taajiriintu waxay jeclaayeen tartanka fardaha inay daawadaan isla fikirkii macallinka uu qaatay waayo waaye ayuu soo jooga macallinka waxba u aruuray iskuulka ayuu dhisay tartankii buu sameeyey isla sanad kadib fikirka ardayga uu lahaa buu isticmaalay sidaas si lamid ah fikir walbo aad leedahay ha ahaada mid kuu koobnaado waayo waxaa laga yaabaa waqtigeeda inaadan joogin haddaad qof walba u sheegtid qof waqtigiisa jooga ayaa kaa isticmaalayo markuu qofkii kaa isticmaalana halkaasi waxaa ku lumaya fikirkaaga iyo rajadaada iyo hamigaagii